inaad ku heshid shaqo ka soo qalinjabinta jaamacadda ama heerkaaga waxbarasho ayaan haatan ku xidhnayn helidaada shaqo. Isbedbedelka joogtada ah iyo horumarada dhanka tiknoolajiyadda aawadood, suuqa shaqada ayaa haatan u baahan yeelashada xirfado badan si aad u hesho guusha tartankaaga shaqo. Haatan waxa ay shirkaduhu u baahan yihiin in shaqaalahoodu ay yeeshaan xirfado ka badan inta ay lahaayeen sanado ka hor. Si gaar ah, shirkad walba iyo goob kasta oo shaqo waxaa isha koowaad u saaran xirfadaha qofku uu leeyahay kolka laga yimaado shahaadooyinkiisa waxbarasho. Sida ay warisay majalada Isbaanishka ee Confederational, waxa ay sheegtay in bogga aqoonta internetka ee loo yaqaano Udemy uu baahiyay xogo ku tusinaya kor u kaca ku yimid dalbashada xirfado tababar oo si gaar ah ay shirkaduhu u siiyaan shaqaalahooda si tayadoodu ay u sarreyso, ahna kuwa ay shirkaduhu hadda ay ku qiimeeyaan shaqaalaha cusub ee ay qaadanayaan. Xogtan uu baahiyay bogga Udemy ayaa sheegaysa in xirfadaha sida database-ka ay yihiin kuwa ugu sarreeya ee shirkaduhu ay daneynayaan. Inaad aqoon u leedahay SQL-ka oo aad xirfad u leedahay aqrinta xogaha ayaa ka dhigan inaad ku jirto 10 qof ee ugu horeeya ee shirkad walba ay u baahan tahay. Sidoo kale, xirfadaha ay shirkaduhu haatan ay aadka ugu baahan yihiin ayaa waxaa ka mid ah luqadaha kombiyuutarada, programming language-ka sida Java iyo Python. Haddaba kooxaha sida gaarka ugu takhasusay arrimaha shaqada iyo shirkadaha ayaa soo saaray 10 xirfadood ee looga baahan yahay qofka ka shaqeeya saddexda majaal ee kala ah suuqgeynta oo ah marketing iyo farsamada programminta kombiyuutarada oo ah computer language inuu leeyahay sanadkan 2020 si uu u helo shaqada uu doonayo. waxaynu ku hormaraynaa suuqgeynta oo ah marketing. Haddaba suuqgeynta marketingka kolka aynu eegno xirfadaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka ka shaqeynaya arrintan 2020 ayaa waxaa ka mid ah number 1 suuqgeynta digitalka ah, number 2 Python inuu u leeyahay qofku aqoon durugsan waa luqadda barnaamijyada kombiyuutarka ee loo adeegsado horumarinta software-rada iyo falanqaynta xogta. number 3 waa inuu aqoon u leeyahay qofka ka shaqeynaya marketingka haatan horumarinta website-yada. number 4 waa inuu sidoo kale qofku aqoon u leeyahay SQL-ka oo ah luqadda lagu maamulo xogta database-ka shirkadaha. number 5 Google AdWords oo ah shabakad ay leedahay Google-ka taas oo lagu suuqgeeyo hab online alaabadka. number 6 Microsoft Excel qofku waa inuu aqoon xirfadeed u leeyahay barnaamijka Microsoft Excel oo ah barnaamij xisaabeed kuu sahlaya inaad xaliso xisaabaha laguna kaydiyo xogaha xisaabaadka. number 7 qofku waa inuu xirfad u leeyahay hogaaminta suuqgeynta marketing management. Marka lagu daro helidda aqoonta farsamo ee asaasiga ah ee ganacsiga, shirkaduhu waxay sidoo kale rabaan inay lahaadaan maamulayaal suuqgeyn oo awood u leh inay hogaamiyaan kooxda suuqgeynta. number 8 Google Analyst waa barnaamij kale oo ay bixiso shirkadda Google, waana bog lagu ogaado dadka soo booqday website-ka shirkadda, goobaha, cidda, da'da iyo deegaanada ugu badan ee macaamiisheedu ay kala socdaan. number 9 waa inuu qofku u leeyahay aqoon database-ka, keydinta, qorista iyo akhrinta xogaha. number 10 waa inuu qofku aqoon u leeyahay ama xirfad u leeyahay xirfadda sawirada. xirfadan waxaa iyaduna hoos imanaysa arrimaha hagaajinta sawirada ee adeegyada shirkadda Adobe sida Photoshop-ka, Illustrator-ka, After Effects iyo Premiere Pro-ga oo loogu talagalay in lagu baahiyo macluumaadka si farshaxan leh. Qaybta labaad waxaynu ku eegaynaa iibinta saliska. xirfadaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay qofka ka shaqeynaya saliska waxaa ka mid ah number 1 xirfadaha iibinta. awood waa inuu qofku u leeyahay inuu macaamiil ku qanciyo alaab uu doonayo iyo mid aanu rabin. number 2 Microsoft Excel si loo sameeyo xisaabinta horumarsan ama falanqaynta xogta, halkanna waa ka muhiim Microsoft Excel. number 3 hogaaminta iibka sales management waa inuu qofku xirfad u leeyahay hogaaminta qaybta iibinta oo u ah lafdhabar shirkad walba. number 4 horumarinta website-yada. number 5 inuu qofku xirfad u leeyahay ka hadalka meelaha maxfalka ee ay isugu yimaadaan dadka badani. waxaa luqadda qalaad lagu yiraahdaa xirfadan public speaking. number 6 xiriir wanaagsan waa inuu la sameyn karo macaamiisha oo ay tani u tahay xirfad uu leeyahay. number 7 waxaa sidoo kale majaalkan iibinta looga baahan yahay qofku inuu xirfad u leeyahay luqadda SQL-ka oo ah luqadda maareynta xogaha iibka shirkadda. number 8
gorgortanka. haatan waa xirfad shirkad walba ay u baahan tahay inuu leeyahay shaqaalaheedu si aanu u lumin kalsoonidiisa kolka gorgortan uu jiro. Lambar 9 maamul. hogaaminta iyo maamulka farqi ayaa u dhaxeeya waqtigan. maamulku waa xirfad qofka awood u siinaysa inuu kala maamulo hanaanka iibinta shirkadda. waxaa luqadda qalaad lagu yiraahdaa sales leading. Lambar 10 waa inuu qofku xirfad u leeyahay fahamka ganacsiga oo ah xirfadda lahaanshaha aragti dheeraynta fursadaha iibinta oo uga faa'iideyn karo shirkadiisa kolka fursado iibineed ay jiraan. qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaynu ku eegaynaa xirfadaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay dadka programmeriska ah ee programmiyo kombiyuutarada, gaar ahaan ardayda barata IT-ga Soomaaliya ee shaqadoonka u ah haatan shirkadaha waaweyn ee ka jira Soomaaliya. Lambar 1 qofku waa inuu yaqaanaa Python. Lambar 2 qofku waa inuu aqoon xirfadeed u leeyahay barnaamijka Recto oo ah maktabad loo dhisay barnaamijka JavaScript ee ku takhasusay waxa loogu yeero isdhaafsiga isticmaalka macaamiisha. Lambar 3 Docker software waa meel furan oo loo adeegsado abuurista xirmo kombiyuutar. Lambar 4 Java luqadda barnaamijyada. Lambar 5 JavaScript luqadda barnaamijyada loo adeegsado qaabeynta isdhexgalka macaamiisha iyo ganacsatada. Lambar 6 adeegyada Amazon Web waa barnaamij ay bixiso shirkadda Amazon oo laga helo xogaha ganacsiga shirkadda. Lambar 7 Angular qaab dhismeedka qaabeynta iyo dayactirka codsiyada website-yada halka bog ah. Lambar 8 Node/JS nidaamka kombiyuutarada oo loogu talagalay in lagu qoro barnaamijyada internetka ee la isticmaali karo. Lambar 9 C++ qofku waa inuu aqoon u leeyahay xirfadeed luqadda barnaamijkan nooca kan ah C++. Lambar 10 Spring waa qaab dhismeed bilaash ah oo ay abuurista codsiyada website-yada iyada oo la adeegsanayo luqadda Java.